Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada adduunka meel walba oo ku nooshihiin. Maantay fikirka aan idinla wadaagayno waa gobollada ama maamul goboleedyada dalkeena Soomaaliya. Maamulka wuxuu qortay iyo sharciga uu qortay in ay ku kala baxaan iyo maxkamadooda. haddii ay isxalli waayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo ciidamada gobollada, macquul ma ahan inaad dadkiina iyo shacabkiina iyo hantidiina aad burburisaan. Saas ula socda, haddii aa maxkamadihiina iyo odayaashiina ee gobollada ee maamulka samaysa haddii aad isxalli weysaan, dowladdii federaalka ee Soomaaliya ayaa jirto oo gacanta weyneed oo mugga weyneed. Maxkamadaas ayaa tegaysiin, sharcigiina aad geeyaysiin, maxkamadda oo Soomaaliyana ku kala baxaysaan. dadkiina iyo hantidiina iyo shacabkiinana ha baabi'ina. Fadlan waa codsi ummadda Soomaaliyeed amba talooyinka shacabka Soomaaliyeed ka yimid. Nabad ayaan idinkugu baaqi lahay. dad gobolla ka yimid oo Soomaaliyeed amba dowladda federaalka ka yimid idinma heshiisii karo. idinka ayaa isla degan, idinka ayaa isku dad idinka ayaa diris ah. in aad is-ixtiraamtaan oo si fiican qalbi ra'yiga saliimka ku heshiiya dadkiina ummaddiinana halaynina. fikirka lamaad haddaan u gudbo, dowladda federaalka ee Soomaaliya wax badan qabatay, waxaan dhihi lahaa idinkana maxaa istiraatiijiya oo inaa xadadada xirtaan, dalkana al-shabaab aad ka nadiifisaan. maxaa istiraatiijiya oo idinkaaga qorshaysan? taas waxaan jeclaa lahay inay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda hoggaanka hadda haysa tiimkaayo inuu si aada aga fikiraa ayaan jeclaa lahay. aniga waxaan ahay ummadda Soomaaliyeed ra'yigooda ayaan aruuriyaa, aragtidooda ayaan aruuriyaa, fikirka oo saliimka ayaan ummaddayda la wadaagaa. marka waxaan rabaa hadda ciidankayna Soomaaliya wuxuu helay meel wax lagu bari karo ciidanka Soomaaliyeed. taas waxa waaye guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed u soo yeetay. qeybaha isgaarsiintoo kaloo si fiican loo ansixiyey. ummadda Soomaaliyeed way shaqaysay, laakiin cadowga ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed waa al-shabaab. ummadda Soomaaliyeed inaan hurdina, inaana idinka isku mashquulina. cadowgaasna waa in gacan bira lagu qabtaa, lagana hortagaa oo dalkana uuna ku baahin. waxaan qalbiga ra'yiga saliima aan wadanna Soomaaliya in laga ciribtiro oo si isku mid ah anaga hortagno. magacayga waa Cumar Maxamed Nuur. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.